ay ugu horeeyaan guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha golayaasha dowladda ee kala duwan saan la socotaan waxaan ka qayb galay shirkii la oran jiray SPF oo ay isugu imaan jireen beesha caalamka ama sadanayaasha Soomaaliya iyo Soomaalida isugu tageen caasimadda dalka Belgium shirkaas kulay waa la socoteen waxa shir la bari soconayay looga hadlayay duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya ku jirto dhan dhaqaale dhan amni dhan siyaasadeed ayaa aad looga hadlay shirkaas waxaan isleeyahay waa ka duwanaa shirarkii hore marka la eego qaabka Soomaalida loo address gareeyay ama loo dhaqmaayay ama loo eegayay waxaan isleeyahay ka soo baxana waxay ahayn kulli qodobadii waad aragtay waa akhrisateen waxyaabo kulli aan isleeyahay haddii wax laga qabto oo lagu dhaqaaqo oo loo gudbo implementation phase wax la yiraahdo ama hirgelinta waxyaabahaas ka soo baxay inay Soomaaliya wax badan iska bedeli doonaan waqtiga dhow ayaan rajaynaa insha Allah haddii la yiraahdo dabcan intii meesha aan joognayna waxaan lahayn waxa la yiraahdo side meetings oo ah wixii dalal kale anagu ka Puntland aan danaynaynay ama dalal ha ahaadaan ama hay'ado kala duwan caalami ah ahaadaane fursad bay noo ahayd aan ku aragno dad badan oo Soomaaliya si gaar ah u danaynaya Puntland qaar si gaar ah u danaynaya oo dawladda iyo kambaniye iyo dad kala duwan waxaan kaloo fursad u helnay inaan la kulanno jaariyadda Soomaaliyeed ee Belgium ku nool iyo jaariyada kale meel kale looga yimid oo runtii waqti soo galay in loo yimaadaan arkaan wareystaan xaaladda dalku ku sugan yahay naga wareystaan iyo guud ahaan Puntland iyo gaar ahaan xaaladda xoreynta dalka ee socota inaan si gaar ah warbixin gaar ah uga siino waxaan isleeyahay runtii wuxuu ahaa shir wanaagsan ka bacdina laba bari waxaan joogay Nairobi halkaasoo aan kula kulmay iyana dad kala duwan oo ajnabi iyo Soomaaliba leh gaar ahaan ganacsatada reer Puntland ee ku nool Nairobi oo laftigooda aan duruufaha dalka iyo xaaladaha dalka ka jira aan uga warramaynay iyo shakhsiyaad si gaar ah noo daneynayay oo iyana ka tirsan beesha caalamka marka waxaan isleeyahay safarku safar guul oo ahaa ilaahay wax fiican nooga soo saaro waan ku faraxsanahay dalkii oo nabad wax dhibaato iyo shida iyo shaqo aysan ka jirin inaan ku soo laabtay markale waa idin salaamaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin laga soo